iska ilaali inaad magacan ku dhawaaqdo haddii aad joogto dalka Japan. Misaki Baba magacan haddii aad ku dhawaaqdo waxaad cabsi ku beeri dadka ku nool dalka Japan. Misaki Baba waa isla naado foolxun waxayna soo baxday habeenka gudcurka amba midowga gaar ahaan waqtiga jiilaalka waxayna ku garaacday albaabka xaafadaha si ay albaabka uga furaan. kadib markii albaabka laga furana waxay islaantani ka dalbanaysaa inay u keenaan cabitaanka loo yaqaano Sake. haddaba dadka aan garanayn cabitaanka loo yaqaano Sake waa nooc ka mid ah khamriga kaasoo aad looga isticmaalo dalka Japan. haddaba shaqsiga siiya islaantan cabitaankaas uu ka nabadgelayaa sharkeeda waxbana kuma dhacayaan, laakiin shaqsiga u diida cabitaanka waxaa ku dhacaya habaar isaga iyo dhammaan qoyskiisana mana ka tegayo habaarkaasi ilaa ay wada dhintaan dhammaan qoyskoodu. inkaste oo ay sheekadani qadiimi tahay laakiin dadka Japaaniisku ilaa hadda way aaminsan yihiin inay jirto sheekadani. xitaa waxay u sameeyeen taalo u gaara waxayna sidoo kale siiyaan qurbaan u gaara xilli kaste si ay uga fogaadaan ugana nabad helaan sharkeeda iyo sixirkeeda. haddaba daawade adiga su'aal haddii aan ku weydiiyo sheekada islaantan hore muu maqashay qaybta kommentiga hoose iigu sheeg. ha iloobin inaad follow noo saarto YouTube iyo Facebook profile-ka saaranna aad subscribe dhaado.